بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan sidoo kale waxaan ka bilaabi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo korshe cusub oo aynu uga hadli doono barashada xirfadda graphic design-ka oo noqon doonta hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijka aynu ku baran doono Adobe Illustrator. barnaamijkani sidoo kale isaguna wuxuu yahay barnaamijyada loo isticmaalo graphic design-ka ama in wax lagu naqshadeeyo. sidoo kale khaasatan wuxuu barnaamijkani aad ugu sii wanaagsan yahay in loo isticmaalo ama lagu naqshadeeyo logo design-ka. marka barnaamijkan iyo barnaamijka kale oo Photoshop-ka aan casharadiisa soo qaadanayno waxay ku yar kala duwan yihiin. waxoogaa midna barnaamijkan wuxuu ku base garaysan yahay vector, halka kale barnaamijka kale Photoshop uu ku base garaysan yahay pixels. marka waxoogaa labada barnaamij farqiga u dhexeeya waa intaas. mid walba waxbuu ku wanaagsan yahay, inay kala wanaagsan yihiin macnaheedu maaha. marka barnaamijkan wuxuu aad isagu ugu sii wanaagsan yahay in logooyinka iyo lagu dhisan gareeyo professionalska, halka kale barnaamijkaasi uu sawirada iyo in lagu dhid gareeyo uu aad ugu sii wanaagsan yahay. marka pixel iyo vector waxoogaa si aad u kala fahantid, pixel waa hal shay oo kalara fara badan laga abuuray weeye, halka uu vectorku mar walbana tayadiisu waxoogaa ay haddaad soo dhaweyso ama markaad walba zoom ku samayso ay tayadiisu dhamayso. halka kale vectorku uu shaygan yahay shay quality-giisa si walba u soo dhaweyso aan mar walba aysan dhumayn. hadduu ilaahay yiraahdo maanta casharadeenna oo taxana noqon doona iyagana sidoo kale markaynu dhamayno aan ku dhisi doono projectyo kala duwan. waxaa iyagana sidoo kale hadduu ilaahay yiraahdo aynu ku qaadan doonaa barnaamijkan Illustrator-ka oo inoo noqon doona cashir taxana. marka cashirkeenan koowaad ee maanta waxaan uga hadli doonaa interface-ka iyo wajahada guud ee barnaamijku leeyahay. sidoo kale markaynu barnaamijka sidan usoo furno waxoogaa aynu halkaas calaamadda ku dhufano waxay noo soo bixi doonta marka wajahadan oo kale noocan oo kale. marka adiga waxaa laga yaabaa inuu waxay noo soo bixi doonta markaynu saa usoo furno wajahadan oo kale. waxaa laga yaabaa marka inaad adigu aad tan oo kale kuu soo bixin, marka waan arki doonaa sidaad adiguna sidoo kale u samaysan doonto noocan oo kale. marka qaybtan oo kale marka waxoogaa waxay nooga soo bixi doonaa sidii cashirkii horeba barnaamijkii horeba kusoo baranay. barnaamijyada Adobe soo saarto o dhan way ka wada siman yihiin. menu barki oo wax walba waa simanayso markaas aad kasoo dooran doontid ayaa halkan inooga soo bixi doona menu, edit, objective, waxyaabahaas oo dhan. halkan oo kale homeka haddaynu ku dhufano wuxuu ina geyn doonaa meeshii recentska iyo waxyaabihii dhawaanahan aan samaynay. halkaas oo kale haddaynu loogada ku dhufano waa loogadii barnaamijka, iyadana sidoo kale homekuu ina geyn doonaa markii waxa aynu sameynaynay. haddaynu ku dhufano markaynu shay hadda soo furno aynu calaamadda ku dhufano iyadana hometa oo kale ina geyn doonaa. laakiin hadda hometii baynu haysanaa. home haddaynu ku dhufano waxay nagu soo celin doonaa recentskii. haddaynu hadda marka barnaamijku laga dhufanana halkii hadda aynu ka nimaadna buu ina geyn doonaa. marka dhankan bidix oo kale waxaa kaaga soo bixi doona toolskii ama qalabkii la isticmaali jiray. halkan oo kale panelskii iyo waxyaabihii baa kaaga soo bixi doona. meeshan oo kale sidoo kale waxaad ka dooran kartaa workspace-ka markaas aad isticmaali doontid. halkan sidoo kale haddaad shirkadda aad subscription aad ka leedahay ayaad waxaad u baahata aad ka raadin doontaa. marka hadda si ay marka shaashadan inoogu soo baxdo waxoogaa waxaynu soo furan doonaa document cusub. marka qaabkan oo kale markaynu soo baxno waxaa laga yaabaa inuu sidan oo kale ay kuu tahay adiga. halkan oo kale marka shayga ugu horreysan ka hadli doono marka waxaa weeye halkan oo kale marka waxaad ujeedaa inay ka maqan yihiin controlskii ama option barkii. tusaale haddaynu hadda shape soo doorano oona shape halkan ku qorno, marka shapekaas wax ka bedela aynu kuma samayn karnaa ma jiro. wax dee properties ah oo shapekani leeyahay inoo soo baxaya ma jiraan. laakiinse markaynu window tagno aynu halkaas ay controls ku qoran tahay aynu tigta saarno waa ujeedaa marka wixii uu u baahnaa oo dhan shapekeenani hadday stroke noqoto hadday fill noqoto waa dhammaan way noo soo wada baxi doonaa. marka hadda waa ujeedaa stroke haddaynu nan ka dhahno marka waa ujeedaa shapekeeni wax walba oo alignmentiga waan ka sixi karnaa, wax walba waynu ku samayn karnaa. marka halkaas hadday kaa maqan tahay waxoogaa controlskaasi waxaad aadi doontaa window, kadib controlskaas midaasaad ku dhufan doontaa tig markaas harto way kuu soo bixi doontaa. halkan oo kale waxoogaa marka si aad ila fahanto workspace-kan si marka intaynan ka hadlin waxaynu aadi doonaa shaashadan hore halkan oo kale toolskii baa kaaga muuqda. dhankan oo kale zoom in zoom outkii baa kaaga muuqda. halkan haddaad soo furto intaas oo kala duwan bule control haddaan konton ka dhigno boqolkiiba konton baa macnaha arkaynaa documentigeena markaas inoo furan. haddii shortcut aan isticmaalayna waa control plus oo zoom out ah, zoom in ah, iyo sidoo kale control minus oo zoom out ah. marka shortcut ka isticmaali kartid waa noocaas oo kale. marka dhankan kale oo midigta oo kale waa inaga soo sheegnay waxaa kaaga soo muuqan doona panelskii. halkan haddaad samayso tusaale kale artboardska markaas aad haysataa ayaa kaaga soo muuqan doona. hadda hal artboard baa inoo furan, mid kale haddaynu soo furno waxoogaa aynu plus dhahno waa ujeedaa marka mid kale ay noo soo furmi doona. marka haddaynu mid kale sii furno plus halkaas unbaad kasii wadi doontaa. marka waa ujeedaa hadda 4 artboard kala duwan baa inoo furan. halkan aad marka walba midka rabto ka aadi kartaa. hadda one haddaan aadno onkeenu shay baa inoo dhex yaala. marka waa ujeedaa halkan oo kale artboardskaaga aad ka wadi kartaa adaad show dhahdo waxyaabo fara badan oo intaa ka badan ayaa kuu soo bixi doona oo documentigaaga marka ku saabsan. marka menuga inta ugu horreysa waa intaas. halkan ugu horreysa waa menu barkii, halkan waa controlskii, halkan waa tabskii. kolba inta documentiga kuu furan buu halkan ku tusi doonaa. tabska iyo artboardska isku qaldin. tabsku macnaha waa canvaskan hadda inta shay kuugu furan waa halkaa tab weeye. hadduu mid kale tab kale kuu furan yahay wax kale aad soo furtid tusaale kale haddaan new dhahno oo mid kale cusub soo furno create dhahno marka waa ujeedaa hadda 2 tab baa inoo furan. kani waa hal 4 artboard ka kooban yahay. haddaynu zoom out dhahno
marka waa ujeedaa 4 artboard baa ku jira kan oo kala duwan halka taabkan kale uu inoogu jiro hal document bas. Marka taabisku saas ay u kala duwan yihiin. Artboardkuna waa pageska kuu furan markaas. Taabiskuna waa canvaskaagan inta shay ee markaa kuu furaneed mid walba gaarkiisa wax uga bedeli kartid. Marka intaas waa qaybaha hore wajahada hore weeye. Marka shayga kale in fahmi doono waxa weeye shaashadan oo kale saad u bedelan kartid hadda midabkan oo kale haddaad u baahnayn waxaad aadi doontaa marka edit intaad tagto ayaad kadib waxaa kusii dhufan doontaa preference markaad aado haddana waxaad kasii aadi doontaa general markaad aado meeshan ay ku qoran tahay user interface-ka halkan user interface-kaasaad ku dhufan marka colorska kala duwan baa kuu soo baxaya oo canvasku ama workspace-ku uu yeelan doono haddaad caddaan u baahan tahay oo aad caddeynkiisa rabto noocaas uu soo bixi doonaa. Waxaynu ku aadi doonaa marka shortcut control K baan dhahaynaa control K haddaan dhahnay isla halkii baynu joognaa user interface baynu aadaynaa kadib waxaan ka dhiganaa hadda noocaas oo kale haddaan u baahannahay noocaasaan ka dhiganaynaa marka kolba noocay ku qanciya adiga markaas kugu wanaagsan ayaad ka dhigan doontaa control K hadda aniga marka midka aan isticmaalo waa midkaasoo kale grey ah weye xogaa noocaasoo kale marka shaashadan iyadana qaabkaas aad u bedelan doontaa. Sidoo kale waxaan arkaynaa marka sidaa u samaysan lahayd workspace adiga kuu gaara hadda midkan aniga ii gaar yahay waa ujeedaa marka midkaan isticmaalayo mid ay korkor ku qoran tahay weye aniga kan isticmaala marka haddii aynu ku noqono essentialska adiga markaad arki doontid waxoogaa noocan oo kale inuu noqdo laga yaabaa aynu reset essentials aan dhahno midka kuu soo bixi doona adiga waxaa laga yaabaa inuu noocan oo kale yahay oo halkani aysan waxyaabahaas oo dhan kuu furan marka si aad u furitid waa anaga soo sheegnay wax walba oo kaa maqan waxaad aadi doontaa window baad aadi doontaa kadib halkaasaad kasoo dooran doontaa imika controlski ma joogaan kadib halkaan baad kasoo saari doontaa saasay kugu soo bixi doonaan marka waxaan u baahanaa marka inaan samaysano workspace cusub inaga inoo gaara si aad u samaysatid marka waxaad samayn doontaa mid walba gaarkiisaad kuwana soo saari kartaa hadda kan minimize haddaan dhahno ama collapse haddaan dhahno qaabkaasoo kale noqon doonaa layerska sidoo kale iyagana haddaan saa usoo qaadno qaabkaasoo kale noqon doonaan kanoo kale isagana librarieska marka hadda meesha waa ujeedaa wax ku yaala malahan kuwan marka adaa hagaajin karaya marka halkaas aad ku dhejiso waxay ka dhigantaa geesku ku dhigan yahay laakiin haddaad halkaas ka dhigto geeskii kuma dhigana marka si aad geeska inaad ku dhejiso u hubisid waxaad samayn doontaa markaad sidaa u qaado calaamadaas ay kuu soo baxday inuu dhankaas ku dhigan yahay buluugihii waad sii deyn doontaa marka geesku ku dhigan yahay bay ka dhigan tahay marka kanoo kale hadda marka isagana aan geenin halkaas haddii dhankan biixda uu buluug ka noqdo marka haddii dhankan marka ay buluugga dhankan biixda hadduu noqdo waxay ka dhiganaan doontaa isagaa booskan samaysan doona halkaasuu tegi doonaa marka haddii laakiin aad u baahan inuu halkaa yaallo waxaad samayn doontaa intaad kasoo qaado ayaad waxaad hoostiisa haddaad rabto inaad dhigto qaabkaasoo kale markii kuu soo baxdo ayaad sii deyn doontaa calaamadda buluuggii markii kan hoostiisa la dhigi doonaa haddii dhankan kale laakiin dhankaa biix baa la dhigi doonaa isku mid ma noqon doonaa marka si ay hal meel kuugu wada galaan halkaasaad dhigi doontaa marka kanoo kale isagana waan soo qaadi doonaa librarieska sidii oo kale aan samayn doonaa halkaas aynu isaga dhigayna marka hadaynu wax kale u baahanna markaas inaan kusoo darsano hadda waxaan haysanaa marka waad kala hormarmarin kartaa muhiimadda kala hormarmarin karta noocaas oo kale weye waad jiidi midkaad u baahanta waad soo qaadi kadib waad ka hormarinaysaa haddaynu u baahanna inaynu marka wax kale kusoo darsano halkan oo kale waxaan samaynaynaa su'aal kale hadda waxaan u baahanaa inaan alignmentkeena kusoo darsano waxaad kusoo darisoo dhan halkan aad keeni doontaa sidoo kale haddaan samaynaynin baad u samayn doontaa appearancegaan rabnaa isagana inaan kusoo darno sidoo kale waxaan u baahanaa inaan kusoo darno brushkan imika saddexdaas aynu kusoo dareynaa markaynu saddexdaa ku darayno waa isla sidii oo markaad sii deynayso halka ha kusii deynin dhankan kale ardada ayuu boos ka samaysan doonaa isagu laakiin halkaas markuu joogo calaamadda hoosta noocaas oo kale ay noqoto halkaas kusii daa marka kanoo kale isagana aan soo qaadno halkan aan isagana kusii deyn doonaa kanoo kale alignmentgana isagana sidoo kale iyo transformka isagana sidoo kale halkaas aan kusii deyn doonaa marka haddii kanoo kale isagana aad rabto inuu laba line ku noqdo hadda hal line buu yahay oo isaga sidoo kale haddii intan ay kusoo muuqdaan waxaad samayn doontaa oo calaamadu qaybta basicska ku dooran marka si aad qaybaha fara badan ee aniga hadda iisoo muuqday oo kale ay kugu soo muuqdaan adigana waxaad samayn doontaa calaamada yar baad ku dhufan doontaa kadib halkaas hamburgerkaasaad kusii dhufan kadib halkaa basicska ku dooran adiga waxaad samayn doontaa halkaasaad waxaad ka dhigan doontaa advanced marka advanced aad ka dhigto intii inka badan baa kuu soo samaysmi doonta oo aad ujeedaa toolskii marka iyaga laftigeeda waxaad samayn doontaa inaad hal line ka dhigato saas oo kale inaad laba line ka dhigato kolba midkii adiga ku qanciyo aniga saas ay tahay ayaad ka dhigan doontaa markaas marka aad saa ugu qanacdaad saan ugu qanacsan tahay inuu workspace-ka uu ku ahaado waxaad aadi doontaa workspace baad ku noqon doontaa ama halkan aad ka aadi ama halkan labada window intaad tagto workspace halkaasaad kasii noqon doontaa halkaa markaad ka tagto waxaad samayn doontaa halkan new workspace-ka ay ku qoran tahay ayaad samayn doontaa marka meeshaasaad magaca u baxsan doontaa marka halkan aad magaca ku qoran doontaa waxaad samayn doontaa hadda Gorgon Academy aan dhahno markaynu saa u samaysano oo kale waxaan samayn doonaa safe baan oranaynaa okay hadda markaynu ku laabanaa halkan midkeeni baa inoo samaysan haddaynu essentialska aadna hadda
essentialskii buu ina siin doonaa. Essentialskii weli hadda inama siinin, keenii buu weli ku taagaya. Marka si essentialska isagoo kuu dooran, macnaha essentialska wuu dooran yahay, keenii ma doorano, laakiin waxaad oran doontaa reset essentials sida essentialska caadiga aragto. Marka kaas kii buu ku laaban doonaa. Hadaynu ku laaban mid keeni hadda, keenii buu toos inoo geyn doonaa marka hadda waa ujeedaa. qaabkaas oo kale marka aad ugu bedeli kartaa interface-ka hore ee barnaamijkana cashirkiisa. Haddaas halkaas aynu ku ekeeni doonaa toolskan iyo mid walba waxa loo isticmaala hadduu Ilaahay yiraahdo, ayaynu cashiradeena iyo qaybaha ugu muhiimsan ayaynu cashiradeeda dambe ku arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka halkaas aan ku ekeeni doonaa cashirkan maanta. Khayr badan baan idin rajayn. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.